بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إن شاء الله تعالى ولا لها كحر بيتنا دار خير هربر سنتا إن شاء الله وحان ما أنت عليك سوق بيرنا قصة مهم جدا أنا أرجع إني فوائد ده هذه هذا فربنا تهاي قصة أيها وحيكون بالله وتسدان وحان هاجر ير ولا يرى وحان لحن سنة سحر يعيل يحسد إن بدن واردينتي ويقول دالين إلى أي مير والبيكيان إلى أي مير والبيكيان الباب والبناء قرعنه وأن أولي جري حنونك أنت بدن وحي قمن جري مركي قرح هذا دعيسو وحونا أنا نحرس ديري مجري مخيدك صوت توسان ذاتك أيام ويشن جري لكن مركي عركو قلبكي أصي دعايو ama qoraxdii oo sii dhacayso ama galabkii oo la gaaray salaada casirka marka la tukado walwal laana caawad waan soo joodi doonaa waana keligay waxaan soo bixiyeen garan waayay waalidiintii lacagtii way ka dhamaatay maalin maalmaha ka mid ah ayaan tukaday ilaahay ayaan aad u bariyay waan ooyay ilaahay ayaan ku ooyay alla caafimaadka wanaagsana walaalayaalow عافماتك إله ونسيي ونمع من نعم الله سبحانه وتعالى نعمك ونقل مكوبي كرنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إله نعمك ستدرسه مكوبي كرتد الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار كود أيضا يدوي ويدي إله يسكبها به سي علماء فربضا oo loo geeyay iyo rajabeel fara badan ilaahay u soo laabatay ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay firru ila allah ilaahay u soo cararo gabadhii maalin maalmaha ka mid ah ayadoo ilaahay sida uu ooyeyso ayaa waxay bilowday inay bilowdo istighfar wama adraakum al-istighfar wal-istighfar maxaad ogtihiin استغفارت سحرك على غفرة همي على غقادة دينت على غبحية استغفارت روحي لب ولا إماضه إلهي الباب بدن خير يغفره وحد عضي كبريني بلو استغفار معلن حكم ده والرياضي وحيكون رياضي أيضا حنيم كعافي ماضي وحدو غتان رياضة وحاويو قب شائرته ama bishaarooyinka ugu wanaagsan ama ugu dambeeyo oo qofka bilaadanka uu helo way gabadhii ayaa waxa dhacday inay riyootay ayadoo istighfaarsanayso seexatay boqol istighfaar ayadoo akhrinayso oo laazimtay qurux badan caafimaaday ayay ku riyootay boqol kameen dhigana kun ayay ka dhigtay maalintii koobaad waxay dareentay inay wax yar seexato soo kacdo istighfaartana sii wado way faraxdo hooyadeeda ay u sheegtay waxay tir hooyo xalay aad uma xanuunsanin maamadii musiga ay u sheegtay aad ay u farxday mayna weydiinin gabadhooda waxay soo biso sadaqa fara badan ayuu musiga bixiyay aabaheeda qeyr allaha siiye sadaqadana waxaad ogaataan inay tahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo uu ku soo degdego caafimaadka uqubada ilaahayna lagu qaado istighfaarta ay gabadha wada Allahu akbar istighfaarta miyuna ilaahay subhanahu wa ta'ala dhihin inta istighfaaranaysan ilaahay macadaaway nastaghfirullah wa natubu ilayh markaad kaliya tahay astaghfirullah wadada alfka ka bilaabaysa markaad badantiina nastaghfirullah wa natubu ilayh إلهي أنك أنت ندري سنسي أنت مسلم بالله والدين بدافع وحد على مركا استغفرت أي ودي قلب الصبح ويودي قلب الصبح ويبدأ سي مسجى ودي حنومكي أيه وحي عرتي ما ندافع قبناي حنومكي أي ما ندافع دريميسو قبل وي فرحدي وي أويدي سلام حي ويسي سلام روب بي ويسي maanta maxay u weysaa maanta farxad bay u weysaa
farxad bay la ooyeysaa, farxad zaa'ida bay la ooyeysaa maanta. way istikfaaratay, salaada sunnada ayay badisay, istikfaarta ayay waday, mise xanuunkii maalin dhaafka ahaa wuxuu isku bedelay wiig. allahu akbar. waxay suubisay istikfaarta ayay sii waday, way sii laba jibaartay, farxadda ayaa ka badatay. ilaahay subxaanahu watacaala hanagu wada daa'im yeelo istikfaarta. mise xanuunkii u qabanayay wiiga wuxuu isku bedelay inuu gabadhii isku bedelo inuu 2 wiig markuu dhaco. gabadhii istikfaarta ayay sii waday, ilaah ayay bariday, waalidiinteeda ayay u sheegtay, waalidiinteedna way farxeen, ayagana istikfaarta ayay bilowday. gabadhaas ilaahay subxaanahu watacaala wixii khayr kuwa ma garanaysid inuu xanuunkaas ku dhaco. gabadhaas ay saa u xanuunsato khayr ayuu u ahaa, waxbaha sareysanadii waxay sabab u noqotay inay ilaahay subxaanahu watacaala isku xirto. waxay sabab u noqotay inay bini aadan dhan aynan aaminin oo isbitaal la geeyey, oo cilaaj la geeyey, oo meel walba la geeyey. rabburaxmaankeeda ku xirmatay, albaabkii malikul muluk ay qaraacday, boqorka boqorada allah subxaanahu watacaala albaabkiisa ay qaraacday. ilaahay soomuna dhihin fadcuunii astajib lakum, ibaryaa ninka ajiibe, fafiruu ila allah, ilaahay u cararo. ilaahay u carartay. gabadhii maxay sababtay istikfaarteedii in museygii iyo maamadii, hooyo iyo aabbo in ay ayagana istikfaarta bilaabaan, inay aad gabadhoodii ugu rafaadeen ay ugu farxaan, inay ilaahay subxaanahu watacaala u mahadceliyaan. allahu akbar. maalinkii gabadhaas xanuunsanaysa dad badan ayaa laga yaabaa inay lahaayeen war xanuunkan xaw ka imaaday, laakiin kulligood muxuu ahaa khayr. lianna muxuu u sii joodiyey hanuun iyo jidka fiicnaa iyo wanaag iyo barwaaqo. ilaahay subxaanahu watacaala umuurtanadoo dhan khayr ha ka dhigo. waxaa dhacday, qof walba wuxuu is weydiinayaa maxaa dhici doona. xanuunkii wiig dhaaf ugu dhacay, wiigga hadduu ku dhicin wiig kale ku dhacay, wuxuu isku bedelay haddana inuu wiig dhaaf ugu dhaco. xanuunkii ilaa bil ugu dhaco, xanuunkii 2 bilood ay moogaato. allahu akbar, allahu akbar. istikfaartii hooyo aabe ay laazimaan, dadka ay u sheegaan, qisada mataqaanaa la isku wariyo, qisada mataqaanaa ay bedasho, ummad dhan ay bedasho. wanaagna waxaa u fiican midka aad suubiso lagagana daydo, waa midka miro dhal kale. roob baa da-ay, doog buu soo bixiyey, waa la manaafacaadsaday, waa roob fiican. roob baa da-ay, doog muuna soo bixin, roobkaas ma la manaafacaadsanin. ilaahay subxaanahu watacaala hadalladanada iyo mataqaanaa socodkanaga iyo ficiladanada kuwii la manaafacadsado oo annaga aan manaafacadsano, ilmaha annagana kayd u noqdo, muslimiintan ay ku badbaada allah ka dhigo. qof walba oo na dhageysanayo, qof walba oo muslim ah, ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo. qadama sidqin ilaahay ha nasiib. ilaahay subxaanahu watacaala raad baaqi ah oo haro ilaahay ha nasiib. waan ka tegaynaa adduunkan. gabadhii waxaa soo martay, allahu akbar, allahu akbar, ilaahu adaa mahad iskale. gabadhii waxaa soo martay sanad ayna xanuunkii arkin. sanad saan u seexanayna u seexanayso, alxamdulilaah. sanad waxaa soo martay iyu xanuun arkaynin. allahu akbar. ilaahay subxaanahu watacaala xanuunka ayada ha ka caafiyo, oo ilaahay subxaanahu watacaala caafimaadkaas uu siiha u daa'im yeelo. annagana kuwii istikfaarta laazima ilaahay ha naga dhigo, ilaahay ha in barakeeyo. waxaan qisadaas in kugu soo gudbiyey dad badan oo walaalahey ah, daawadii ag taallo, daawadiina ka rafaadsan, isbitaallo iyo cilaajyo iyo howlo kale lacagahooda ay baabi'iyeen, inay ogaadaan rabbulcaalamiin qasaa'intiisa iyo qasnadihiisa way furan yihiin, wayna buuxaan. aan la baxno. caafimaadkii wakaa, israaqadii wataa, jagadii wataa, cizi fi dunya waalaakhira wakaa. ilaahay wuxuu leeyahay
ayabtaquuna cindahum alciza. war gaalada iyo shayaadiinta iyo munaafiqiinta ma waxaad ka doonaysaan cizi? fa ina alcizata lilaahi jamiica. sharaf oo dhan ilaahay, diinta kitaabka ilaahay iyo sunnada nebi maxamed waxaad ka weydo meelaad ka helaysa malo. ogow, salaada ku dadaal, soomka soon, sadaqada bixi, istikfaarta aan ku dadaalno. insha allahu tacaala aan isku soo duceyno adduunkaan anagoo ceeb la-aan ah, anagoo caafimaad qabno. ilaahay subxaanahu watacaala adduunkaan nagu asturo, aakhirana ilaah naguma cadaabo. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. addaal cala alkhayr ka faacilihi. aad baad u mahadsantihiin. jazaakum allahu khayr aljaza.